maxaa kaloo u baahannahay inaan wax ka qabanno waxaan u baahannahay waxaa jira laba cudur oo dilaa ah mid waa mid la yidhaahdo qabyaaladda oo aanan garanayn dadka waxay ku tarto aan dhib ahayn waa in dadka soomaaliyeed ay aqbalaan cidda ugu wanaagsan oo wax u qaban karta inay tahay dowladnimo dalka in laga hirgeliyo qabiilkan isbaarada loogu dhigay dalka oo aan cidna loogu danaynayn laakiin dad gaara ay ku danaysanayaan waa in reer caabud waaq aad ka bilowdaan oo tidhaahdaan waktigii qabyaaladda waa la soo dhaafay waxaa la gaadhay waktiga aqoonta iyo waktigii lala tartami lahay dowladaha aan kula nool nahay qarniga 21aad maxaa kaloo loo baahan yahay faham iyo aragti dheer nidaam noocay ah ayaan qaadanaa makan bariga makan koonfurta makan dhinacaas naga jira makan dhinacaas naga jira makan galbeedka maya waxaan ka shaqaynaynaa nidaam loo tolay xaaladda dalkeenna uu ku sugan yahay oo la yidhaahdo nidaamka ummadda soomaaliyeed oo cidi aanay bannaanka nooga soo yeerin waxaa kaloo u baahan nahay ugu dambayntii 75% shacabka soomaaliyeed oo dhallinyarada ah oo iyaga laftoodu noqday sida wixii la dhihi jiray maalinba wixii dhacaa ayaa dadka haga debdemis ahaan ayaa loo shaqaynayaa qofiba qof buu taageeraa waxaan idin leeyahay saamiga ugu badan dalka idinkaa iskale maadaama aad tihiin 75% is-abaabula isu imaada isxulufaysta la xisaabtama kuwa dalka maamula si mustaqbalka idinku aad dalka ula wareegtaan qodobka saddexaad oo aan rabo inaan idinkala hadlo waxa uu yahay wiilasha iyo gabdhaha jaamacaddan dhigta oo raba dunida inay u soo baxaan oo hadda wasiiradeyda halkan taagnaa oo jaamacadda ka soo baxay waxay yidhaahdeen 80kii malaa 70kii ka soo baxeen laakiin raba inay mustaqbalka bedelaan oo wasiir canshuur iyo wasiir sabriye iyagoo faraxsan halkan ay ka sheegeen jaamacaddu lacag la-aan bay ahayd meel la seexanayo lacag la-aan bay ahayd macallimiintu lacag la-aan bay ahaayeen raashinku lacag la-aan buu ahaa lacagna jeebkaa loo gelin jiray cidda rabta inay ogaato dal noocee ahaan rabnaa kaasaan raadinaynaa idinku marka waxaan rabaa inaad isweydiisaan 3 su-aalood kow dal noocee ah ayaad la falgelaysaan 2 duni noocee ah ayaad la falgelaysaan 3 shahaadada aada raadinayso maxaad u raadinaysaa 3daas su-aalood ayaan rabaa inaad intaad ka soo shaqaysaan u keentaan macallimiintiina jawaabtu waxay idinla tahay kow waxaad u soo baxaysaan duni maskax lagu tartamayo khayraadka la isku gumaysto waxaad u soo baxaysaan duni khayraadka dusheeda yaalla iyo dadka uu dadku badan yahay oo siday qola si fiican ugu noolaato ay khasab tahay inay qola si xun u noolaato waxaad u soo baxaysaan duni qofba qofkuu ka cilmi badan yahay uu ka fursad badan yahay waxaad u soo baxaysaan duni sida ugaarta ah oo ah waxaa ugu rajo fiican kan ugu orodka badan waxaa ugu khatar badan kan ugu orodka yar sababtoo waa lagu cunayaa qoraxdu markay soo baxdo waxaad u soo baxaysaan duni noocaasa dardaaran noocee ah ayaad rabtaan inaad jaamacaddiina ka qaadataan fikir noocee ah ayaad rabtaan inaad samaysaan dunidaas iyada ah oo gacmaha dadka iyo mashiinadu ay shaqada isku haystaan oo adduunyadu bariya galbeed isu haysato oo khayraadka dunida la isugu haysto yaa leh cilmigee ama yaa u jeedin kara dalkee dhinacee dunidaas ayaad rabtaan inaad u soo baxdaan dunidaas lafteeda marka waxaan rabaa inaad ku xirtaan su-aasha labaad oo ah idinkoo dunidaas u soo baxaya dal noocee ah ayaad rabtaan jaamacadda markaad dhammaysaan inaad u soo baxdaan
waa dalkii aan idiin sheegay oo ku jira xaalad aan caadi ahayn oo loo rabo xal aan caadi ahayn. diyaar ma u tihiin inaad u shaqaysaan? haddaad rabtaan inaad u shaqaysaan waa inaad gurigiina ka bilowdaan, sababtoo ah haddii galbihii aad isu tagtaan ood qabiil ka sheekaysataan qarnigan waad ka haraysaan. waa in dhaqankiinu uu ka duwan yahay dhaqankii awoowayaashin. waa in dhaqankiinu uu ka duwan yahay dadka aniga iyo da-deyda iyo kuwa iga weyn. waa in dhaqankiinu uu xumbaarsan yahay fikir dheer oo ah in dalkiinu uu ku jiro xaaladii la xoreynayay, cidda dhallinyarada usoo baxaysana ay idinka tahay. 3 shahaadada aad rabta inaad qaadato maxaad ku samaynaysaa? dadku waa 2 qolo fikirkoodu uu yahay inay shahaado helaan si ay u shaqaystaan, iyo qolo xambaarsan macno shahaadada ka weyn iyo macno iyaga ka weyn oo ah waxay rabaan inay naftooda usoo qadimaan si ay dalkooda uga saaraan dhibka. shahaadada waxay usoo qaadanayaan in waddankan ku jira xaaladda aan caadiga ahayn ay codkooda kor u qaadaan, habeenkii ay hurdada iska daayaan. waxaad kala dooranaysaa 2 inaad shahaado soo qaadatid, 7 saac soo shaqaysatid, gurigaada tegtid, iyo inaad tidhaahdid nafteyda waxaan u qadimayaa si kuwa iga dambeeya ay u helaan nolol ka wanaagsan tan anigu aan ku jiro. sababtoo ah wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo naga xoolo yar, oo naga dhaqaalo yar, oo naga tabar daran waktiga isagaa, sababtoo ah waxaa kor saarnaa gumaysi, ayaa intay isu yimaadeen ayay dalkan xoreeyeen. waxaan rabaa marka idinka iyo macallimiintiinu inaad su-aalahaas isweydiisaan oo tidhaahdaan waa maxay dunida aan rabno inaan la falgalno, waa maxay dalkeenna aan rabno aan u shaqeyno oon la falgelayno sida uu yahay, waa maxay macnaha ay noo xambaarsan tahay shahaadada aan rabno inaan qaadano. ugu dambeyntii waan ku faraxsanahay in wiilal iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed ay halkan jaamacad ka dhiganayaan, jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ah jaamacad ay maamusho dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan halkan ka maqlaayay inaad qabtiin baahiyo degdeg ah sida ugu dhaqsaha badan. waxaan halkan idiin sheegayaa inaan fari doono hay-adaha nagala shaqeeya iyo xafiiskaygaba in baahiyaha degdegta a qabtaan si degdeg ah laydinkaga xalleeyo. waa mahadsantihin.